وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إلهي سبحانه وتعالى wuxuu noo tilmaamay in ciidana laga khalqay, wuxuu noo tilmaamay in ayadana la ku celin doono, wuxuu kaloo tilmaamay ayada in nala ka soo saari doono. minhaa khalaqnaakum, xaggeedaan idinka abuurnay, wa fiiha nuciidukum, gudaheedaan idinku celinaynaa markaad dhimataan oo waa laydin qabriyaynaa. wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa, mar kalena xaggeedaa laydinka soo bixinayaa ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. walaalayaal saan la socono, adduunkan wax looga gadoomo ee qofku uu ku faaruqa waxaa ugu wanaagsan khaatimada fiican. waxaa u qiimo badan in khaatimadiisa ilaahay khayr ku khatimo subxaana wa tacaala. waayo qabri baa loo socdaa, waa meel ciriiri badan, waa meel mugdi badan, waa meelaan unus iyo wehel joogin. bacdamay saa tahay waxa ummadda anfaca ee qofka dhulka hoostiisa ku anfici kara waa inuu khaatimo wanaagsan la yimaado. khaatimada wanaagsan ilaahayaa laga baryaa subxaana wa tacaala. say gebagabadaadu noqon doonta lama oga. meeqaa wanaagsaneed oo halowday gebagabadii geerida markii dhowaatay, meeqaa xumeed oo hagaagtay mar allaala marka gebagabadii la gaaray. rasuulku inuu dhaartay buu yidhi macbuudkii asaga maahane mid kale uusan jirin baan ku dhaartaye axad idinka mid ah wuxuu camal qabanayaa bicamali ahli nnaar, dadka ahlu naarkaa camalkooda. waa sida dadka u muuqata, dadka ahlu naarkaa camalkooda ummaddu aad bay ula yaaban yihiin. habaar helahan muu hagaago, ninkan muu iska toosay leeyihiin. camal ahlu naar ayuu markaa ku jiraa, ilaa asaga iyo naarta ay isu jirsadaan dhudhun buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam, oo la leeyahay hadda hadduu dhinto naartuu gelayaa. waxaa ka qaalib noqonaya kitaabkii loo qoray hooyo caloosheeda markuu ku jiray oo ahaa nin wanaagsan inuu yahay. wuxuu camal qabanayaa bicamali ahli ljanna, ahlu jannaha camalkooda, markaasuu jannadii gelaya. ilaahayaa toosinaya, waa hagaagayaa, towbaa la waafajinayaa, camal fiican baa la waafajinayaa, khayr iyo wanaag baa la waafajin. khaatimadiisaa hagaagaysa. intaa wixii ka dambeeya wuxuu gelayaa jannadii. qof idinka mid ah wuxuu camal qabanayaa dadka ahlu jannaha camalkooda. waa sida dadka u muuqata, ilaa asaga iyo jannadu aysan isku jirsanin ilaa dhudhun maahane. oo dadku ay leeyihiin kan hadduu saa ku dhinta jannaduu gala, kan hadduu saa ku dhinta khayr iyo wanaag buu gaara. xaaladaasay dadku leeyihiin. waxaa ka qaalib noqonaya kitaabkii loo qoray hooyo caloosheeda markuu ku jiray. waa gadoomaya, wanaaggii buu xumaan ku bedelayaa, salaadii buu taariku salaadnimo ku bedelayaa, qur-aankii buu ka tegayaa, xijaabkii bay tuuraysaa. waa gebagabadii, dhimashadii baa soo dhowaatay. khaatimadaa xumaan rabta, khaatimadaa waxay isku bedeli rabtaa ahlu naarnimo. qofkii fiicnaa baad arkaysaa isrogay oo dhinac kale u noqday. saasuu ku dhimanayaa, markaasaa wuxuu gelayaa